waan idin salaamay dhammaantiin kusoo dhawaada barnaamijkan ama muuqaalkan oo aynu kaga hadli doono qaabka loo samaysto Gmail, taasi oo kuu gudbinaysa marxaladda labaad ee ah inaad YouTube samaysato. haddii aad rabto inaad YouTube samaysato waxaa lagaaga baahan yahay marka hore inaad leedahay Gmail account. Gmailkaas ayaynu rabnaa inaynu samayno, kadibna muuqaalka kan ku xiga waxaynu kusoo qaadan doonaa qaabka YouTube-ka iyo barnaamijyadiisa u shaqeeyaan. soo dhawaada. marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay inaad ku qorto meesha aad website-ada ama aad ka gasho macluumaadka internetka, Safari ama Chrome ama Firefox, waxyaabaha midkii aad haysato ayaad ka gelaysaa. halkaas marka aad gasho ayaad ku qoraysaa Gmail sign up. markaynu qorno ayaynu enter sameynana ama aynu ku dhufanayna ta dhexe, ama haddii aad mobile haysato calaamadda hore ayaad sii riixaysaa. halkan marka aad taagan tahay create account, marka halkan tan ugu sareysa ayaynu qaadanaa oo ah samee account ama account abuur. marka aad halkaas ku dhufato waxaa kuu soo baxaya macluumaad ku saabsan sida loo samaysto Gmailka. marka halkan koowaad waxaa lagaaga baahan yahay inaad ku qorto magacaaga, magaca koowaad iyo last name, magaca labaad. marka waxaynu isticmaali doonaa tusaale macnaha aynu ku soo bandhigano un kaliya oo aan ahayn magac dhab ah. magacyada ayna Soomaalidu aad ka isticmaalin waxaa kamid ah Geedi, si ayna qof kale una u qaadan inuu magaciisa la isticmaalay. Roble sidoo kale waa magacyadii hore, inkastoo jiraan dad isticmaala. Geedi Roble ayaynu qaadanay, markiiba wuxuu inoo soo dhigay laba magac oo uu isagu inoo dooray, laakiin ka yeeli mayno saynu rabna ayaynu qoranaa. haddii aad rabtana sidaas waad ku raaci kartaa. marka labada magac uu kuu qoray ay isku ka geeyay, midba xaraf ka soo qaaday, kii kale Roblena xagga dambe ka raaciyay. marka waxaad u baahan tahay kaliya magaca la magacaad rabtaa ayaad ku qoran kartaa. wuxuu noqon karaa magacaaga saxda ah, waxa kale oo uu noqon karaa magac been ah ama naanaystaada ama magacaad iska jeclaysatay uu noqon karaa. qasab maaha inaad magacaaga koowaad ku qorto. Geedi Roble 123 ayaynu qaadanaa. magacaas marka aynu qaadano waxaa laynooga baahan yahay markasta inaynu halkaas ku qorno ama aynu isticmaalno magacaas. haddii aad YouTube-ka ku samaysato iyo haddii aad Gmail-kan fariin ahaan u isticmaalayso, labadaas waxaa lagaaga baahnaan doonaa isla magaca halka aynu gelinay, ama ahaada magacaagii saxda ahaa ama magac kale. sida ugu fiican isticmaal magac aad adigu leedahay ama kuu gaar ah, ama naanays ah, ama magac aanad ilaawi karin inta badan, macno gaarana kuugu fadhiya. Geedi Roble iskaga qabo, sax, hore ugu soco. marka hoostana waa meeshii passwordka loogu talagalay. password ayuu noo soo jeedinayaa, laakiin uma baahnin. marka halkan waxaad ku qoraysaa marka koowaad passwordka aad rabto inaad ka dhigato. waxaynu ka dhigan karnaa tusaale ahaan ka ugu fudud yaynaan odhan. haddii aad rabto password adag inaad ku samaysato waad kartaa, laakiin hadda 1 2 3 4 5 ilaa 9 baan ka dhigan karnaa. laakiin waa password fudud oo hadhow laga jabsan karo. marka si aad u hesho password adag oo aan laga jabsan karin, ama account-kaaga uu noqdo account adag oo strong ah, oo haddii xitaa la isku dayo in la jabsado uu ku adkaado ama ay u suuro gali weydo dadka jabsanaya, waxaad u baahan tahay inaad samayso number, xarfaanta ABC ama batajada oo kale xarfaha Soomaaliga ah, iyo number isku qas. tusaale ahaan magacaaga iyo number isku qas. dhibcahan yara sida dhibicda oo kale, calaamada cajiibta, wax noocaas raaci. saddexdaas haddii aad isku qasto way ku adkaanaysaa qofka jabsada, amaba umaba suuro galayso inuu kaa jabsado. inu fiirino waxaynu qornay meeshaas isha. haddii aad taabsiiso meeshaas isha waxa weeye meesha itus, macnaha waxaan qoray itus si aanad u ilaawin ama aanad xaraf qalad u gelin. marka waxaynu qornay 1 ilaa 9. marka magacii dambe ee Roble ahaa ayaynu rabnaa inaan ku qasno. xarafka koowaad weyne, inta kalena yare, Roble. marka waxaynu raacinaynaa dhibic, ama waxaad raacin kartaa calaamad cajiib, ama waxaad raacin kartaa aduu waxuun raaci.
marka ama hakad calaamada yar hakadka hadda dhibic ayaynu raacinayna si ay noogu fududaato hadhow si aynaanu ilaawin passwordkan ama ay noogu fududaato in si fudud ku xasuusano. halkan confirm buu ku yiri waa xaqiijin in aad mataqaanay passwordku isku mid noqdo. marka mar labaad inoo gali 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Roble oo R2 weyn tahay waa muhiim taasi 2 oo iyo dhibic. marka R taas weyna macnaheedu waxay ka dhigan tahay alphabetka ama xarfahan qoraalka ah ay ka duwan tahay inta kale yar yar ay ku qoran tahay xabadaas R2na way weyn tahay. markaas waxaan u baahanahay xarfo iyo nambaro iyo calaamadaha yar oo isku jira. intaas markasta passwordka ku sameeyso hadii aad intaas passwordka ku sameeysato waxaan hubaa 100% ama 99% inuu passwordkaagaas adag yahay. qof kasta oo isku dayay inuu jabsadana ay ku adkaan doonto. markaas halkan next baan siinaa. marka next ku dhufo waxay noo soo baxay inuu arkana isla markiiba wuxuu weydiiyay in aan page-kan ku save gareeyo passwordka. waayo passwordka page-kii aan passwordka ku soo qornay ama raqam sirka ama raqamka qarsoon ayaynu ka soo gudubnay. maadaama aynu ka soo gudubnay wuxuu inoo weydiinaya isla markaaba inaan ku save gareeyo oo marka labaad ee aan page-kan Safari-ga ka furo in aanan mar labaad u baahan. marka labaad ee aan page-kan imaado uma baahna in aan mar labaad password geliyo automatic ayuu isku furaya. marka save the password markasta ha sameeynin meelaha qaar hadii aad suuqa ka isticmaalayso Gmail-kaaga ama meelaha dadku kula wadaagayaan marnaba ha sameeynin save the password. waayo passwordku marka halkan ku haro waxa dhici doonta in qofka ka dambeeya ama qofka labaad ee meeshan soo gala hadii uu Gmail-kiisa furo isiraahdo automatic waxa ugu furmi doona Gmail-kaagi. marka isku day inaanad marnaba sameyn. never for this website-kan weligii ha ku save gareynin. waad sameyn kartaa taas waa okay waad sameyn. marka wuxuu weydiinayaa gediroble123@gmail.com number aynu ku lifaaqno numberkaas oo la inoogu soo dirayo confirmation ama xaqiijin. numberkii markaan qoro halka recovery email-kan waa muhiim. waa email-ka hadii uu kan wax ka noqdo ama uu ka ciladooba ama uu xun ay ku dhacaan Gmail-ka lagu soo dirayo xaqiijinta. marka kaasina waa muhiim. inta badan waxa lagu sameystaa hadii aad Gmail-ka la leedahay si aad adiga laftaada isku caawiso oo aad midkood hadii aad ilowdo passwordka ama furaha lagu galayo aad ka kale ka soo dhaxasho. marka recovery email-kan waa muhiim. wuxuuna muhiim kuugu yahay waxaad arkaysaa dad badan oo inta YouTube ku sameysteen channel-kaasi uu noqday channel aad u caan ah oo subscribers badan haysta oo viewers badan haysta oo dadku aad ugu xiran yihiin ayaa laga yaabaa inuu Gmail-kii ka xidhmo. Gmail-kii hadduu ka xidhmana waxa ku adkaanaysa inay dib u helaan. marka tani waxay ka caawinaysaa inaad dib u hesho. taariikhda dhalashada halkan waxaan ku qoranaa sida Soomaalida 1 bishii 1 1990 tusaale ahaan 1 bishii 1 inta badan Soomaalidu xilliyadaas ay dhasheen hadii aan kaftan ku darno. marka kan waa Gmail waa qof dumar hadii aad tahay oo sameysanaya Gmail waa female ayaad qaadanaysaa hadii aad nin tahayna male. waxaan kale inama khuseeyaan waxyaabo kale oo kulay gaalada khuseeya dadka aan mataqaanay labada midna ahayn. marka male aynu qaadanayna oo nin ah. marka halkan hoose aynu imanana waxaynu leenahay next ama hore ugu sii soco. halkan ayaad send ku dhufanaysaa. numberka ayaad hubinaysaa numberku inuu sax yahay. numberkaas ayaa lagu soo diri doonaa. numberkaas ay igu soo direen isla markiiba SMS. numberkaas ayaynu verify ama xaqiiji. marka hadii aad number qalado kulay hore ugu sii socon karno laakiin si fiican iskaga hubi. okay uu sameysmay hadda welcome Gediroble. welcome buu ku soo dhawo. marka wakaas YouTube-kii hadda ayuu noo furmay. marka Gmail-kii aynu sameynay ayaynu ku abuurnay YouTube-kan. marka YouTube-kan hadii aad rabto inaad wax soo geliso waxaad ku dhufanaysaa qaybtan. videoga dambe ayaynu ku arki doonaa qaabka YouTube-ka aynu isticmaali karno ama aynu barnaamij u soo dejin karno ama barnaamij
aynu diyaarsanay aynu youtube-ka ugu soo bandhigi karno si ay dadku u wada arkaan. markaas intaas ay naga eg tahay barnaamijkii ama muuqaalkii aynu maanta ugu talagalnay qaabka ugu fudud ee aad gmail ku samaysan karto. gmailkaas oo ah gmail adag oo aan loo dhici karin ama aan lagaa jabsan karin.